السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa nin intuu gabar dilay isku dayay inuu baxsado si uu uga baxsado booliska darteedna wax walba u sameeyay xataa wuxuu qalin ku sameeyay wajigiisa sidii uu u yaalay waa uu bedelay laakiin wax walba oo sameeyay dadaalkiisa wuxuu ku soo dhamaaday meel cidla ah oo ugu dambeyn boolisku ay soo qabteen ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. qisadeena maanta waxay ka bilaabanay gabadhan waxaa lagu magacaabaa Lindsay Hawker. waxay dhalatay 30 December sanadkii 1984 waxayna ku dhalatay magaalada Coventry ee waddanka Ingiriiska halka ay ku kortay kuna soo waxbaratay. markii la gaaray 2007 Lindsay waxay ka baxday jaamacadda. xilligan waxay doonayday inay u dalxiis tagto wadamada kale ee adduunka ku yaala. mid ka mid ah wadamada ay ugu jeceshahay inay u dalxiis tagtana wuxuu ahaa waddanka Japan. sidaa darteed waxay shaqo ka dalbatay silsilad iskuul ah oo afka Ingiriiska barta ardayda oo lagu magacaabo Nova. kadibna waa ay soo aqbaleen. intaa kadibna waxay aaday waddanka Japan. markii ugu horeeyay oo ay tagto waddanka Japan aad ay uga heshay. mar walba ay waalidkeed la soo xiriirteen waxay u amaani jirtay waddanka Japan gaar ahaan magaalada caasimadda ay ku sugan tahay ee Tokyo. markii ay tagtay Lindsay Hawker waddanka Japan waxay la saaxiibtay laba gabdhood kale oo iyagana macallimiin ka ah iskoolka Nova. saddexdoodana hal guri ay isla dageen waxayna noqdeen saaxiibo aad isugu dhow. bishii Maarso 2007 maalin maalmaha kamid ah waxay ka soo baxday iskuulka kadib markii ay soo dhamaysatay xiisadaheedii. kadibna waxay soo aaday baakinka baaskiilada ee uu leeyahay iskuulka laakiin waxaa soo daba kacay ninkii wuxuu ka daba yimid markii ay soo istaagtay baakinka baaskiilada. kadibna wuxuu soo istaagay halka ku aadan dhabarkeeda wuxuuna ku yiri waxaan ahay mid ka mid ah ardaydaada. Lindsay gadaal ayay u fiiriday waxayna ku noqotay layaab maadaama ay taqaano ardaydeeda wajiyadooda oo dhan wajigiisuna ka mid maahayn wajiyada ay taqaano. laakiin si walba ay ahaataba Lindsay laba kalmadood oo isdhaafis ay ku tiri kadibna waxay raacday baaskiilkeeda waana isaga tagtay. intaa kadib ninkii wuxuu bilaabay inuu soo daba socdo baaskiilkeeda. mar walba ay baaskiilka xawaarihiisa kordhidana isaguna uu ka soo daba ordo. markii hore oo ay baaskiilka la baxday si caadi ah ayuu u daba socday oo waa uu ka daba lugeynayay. markii ay xawaaraha kordhiday waa uu ka daba rucleeyay. markii xawaaraha sii kordhidayna waa uu ka daba orday. Lindsayna suurtagal uma aysan ahayn ninka inay ka fogaato oo ay ka daahsoonto sababtoo ah waxaa badnaa luuqyada ama jidadka ay ka leexleexanaydo oo ay ku qasban tahay inay baaskiilka si tartiiba u wado ama marmarka qaarba waxay geli jirtay saxmad. mar walba oo ay saxmad gasho ama ay baaskiilka tartiib u wadana isaga oo ordaya ayuu ka daba imaanayay ilaa ay ka soo gaartay gurigeeda. markii ay gurigeeda timid wuxuu ku yiri fursad isii hal mar waxaan rabaa inaan kula hadlo. Lindsay waxay istiri ninka gurigaaga waa uu aqoonsaday hadda waxaa laga yaabaa inuu dabagal kugu sameeyo maalin walba. intii ay sidaa dhici lahayd hal mar waqti sii oo bal dhageyso waxa uu rabo. wuxuu ku yiri magacaygu waa Tatsuya Ichihashi waxaana rabaa inaan dibadda wax ka soo barto. si aan dibadda wax uga soo bartana waxaan u baahanahay in Ingiriiskaygu uu aad u wanaagsanaado. waxaan ka rabaa inaan isiido xiisado gooni ah oo private ah saacadiina waxaan ku ogolaa inaan ku siiyo $32. Lindsay waxay ku tiri waa ka xumahay xiisado kuma sii karo sababtoo ah mashquulkayga ayaa badan oo waqti ma hayo. kadib wuxuu ku yiri walba waxaa siida galaas biyo ah sababtoo ah waqti dheer ayaan kusoo daba ordayay oo waa aan daalay. kadibna waxay ku tiri guriga soo gal. gurigana waxay u geliday waxay doonayday inay saaxiibadeed arkaan oo ninkan wajigiisa ay aqoonsan karaan haddii bari wax ku dhacaan. Lindsay guriga ayay soo geliday kadibna waxay u soo shubtay galaas biyo ah. markii ay u soo laabatay meeshii uu fadhiyayna waxay aragtay isagoo buug iyo qalin intuu la soo baxay wax qoraya. kadibna waxay miiska u saartay biyihii wuxuu ku yiri wax yar qoraalka aan dhamaysto kadib ayaan biyaha cabayaa. biyihiina dhinac ayuu iska dhigay kadib qoraalkiisa ayuu sii watay wax yar kadibna waa uu dhamaystay. warqadii ayuu intaa kadib soo jaray wuxuuna u dhiibay Lindsay. warqadda waxaa ku sawiraa sawirka Lindsay oo gacanta uu ku sawiray sidoo kalena waxaa ku qoraa magaciisa nambarkiisa iyo emailkiisa. Lindsay arrinkii ayay ka fikirtay intii uu soo bixin kadibna waxay istiri saacadii waxaa helaysaa $32 haddii aa xiisado bareefada iska siido waxba kaa bi'imaayaan. kadib waxay ku tiri waan ogolahay laakiin waxaan wataa hal shardi. halka shardina wuxuu yahay inaan ku kulanno oo xiisada kugu siiyo meel publiga oo maqaayad oo kale ah. wuxuu ku yiri waa ogolahay oo waxaan isugu imaanaynaa maqaayad. sidoo kalena waxaan kuu ballan qaadaa in xiriirka naga dhexeeya uu noqdo xiriirka ka dhexeeya arday iyo macallinkiisa oo keliya. intaa kadibna waa uu isaga tegay gurigeeda. 24 Maarso maalinka wuxuu ahaa maalinkii ugu horreeyay oo ay Lindsay siinayday Tatsuya xiisadiisii ugu horreeyay waxayna ku kulmeen maqaayadda kaamiradeeda ayaana duubtay. maqaayadii ayay fariisteen. intaa kadibna wuxuu qaatay cashirkiisa. markii ay xiisadii u dhamaatayna Tatsuya wuxuu bilaabay inuu isbaarbaaro. intaa kadibna wuxuu ku yiri Lindsay kaarkayga waxaan ku soo hilmaamay guriga waxaa naga dhiibtaa lacagta maqaayadda lacagta xiisada iyo lacagta maqaayadda dhammaanna waxaan ku siinayaa markii gurigayga aan tagno. Lindsay waxay ku qasbanaatay inay lacagti dhiibto. intaa kadibna waxay dhiibtay lacagtii kadibna waxay ka soo baxeen maqaayadii waxayna raaceen tagsigana lacagtiisa iyada ayaa dhiibtay oo wuxuu ku yiri guriga markaan tago ayaa wax dhankooda siinayaa. lacagta ayay siiday kadibna waxay tageen gurigiisa markii ay tageen Lindsay waxay ku tiri ninkii tagsiilaha ahaa mar kale
kaala ayaan ku raacayaa iga tagin oo ninkan gurigiisa ayaa alaab ka soo qabsanaa kadibna meel kale ayaa igeynaya ninkii taksiilaha ahayna waa uu sugay kadibna waxay galeen guriga ninkii taksiilaha wuxuu sugay dhowr daqiiqo 10 15 20 intaa kadibna ay soo laabo weyda gabadhii ninkii taksiilaha ahayna waa uu isaga tagay goobta Lindsay galabtaas waxay xiisad ku lahayd iskuulka Nova laakiin iskuulkii ma aysan imaan maamulka iskuulka iyo saaxiibadeedna waxay ku noqotay layaab waxay isku dayeen inay dhamaantoodba wacaan oo la xiriiraan laakiin taleefankeeda waa uu dansanaa saaxiibadeed waxay is yiraahdeen guriga ayaa ka heli doontaan markii ay xiisadihii u soo dhamaadeen oo ay saaxiibadeedna guriga ku soo laabteen Lindsay guriga waa ay ka waayeen intaa kadibna waxay la xiriireen booliska intaa kadib booliska waxay imaadeen gurigooda markii ay boolisku su'aalo weydiiyeen saaxiibadeed waxay booliska u sheegeen ninkii ay ka shakisnaayeen oo Lindsay soo daba kacay sidoo kalena waxay u sheegeen in subaxdaas ay u baxday inay ninkaas xiisad soo siido kadibna waxay booliska baaritaan ku sameeyeen gurigana waxay ka dhaxleen warqadii uu sawiray Tatsuya sidaasna waxay ku ogaadeen magaciisa iyo nambarkiisa markii ay baaritaan yar ku sameeyeen booliska magaciisa iyo cidda uu yahana waxyar kadib oo ay aqoonsadeen waxaa lagu magacaabaa Tatsuya Ichihashi wuxuu ahaa 28 jir aabihii wuxuu dhakhtar caan ka ahaa magaalada Tokyo hooyadiisna waxay ahayd dhakhtar ilkaha iyaduna waxay lahayd isbitaalkeeda u goonida ah Tatsuya isagu markii uu ka baxay dugsiga sare wuxuu doonayay inuu sida aabihiis oo kale dhakhtar noqdo laakiin darajooyinkiisa oo liita darteed waa ay u suurtagali weyday in kuliyadda caafimaadka uu galo intaa kadibna wuxuu iska galay kuliyado kale markii uu jaamacadda ka baxayna ma uusan shaqayn jirin oo meel ayuu iska deganaa aabihiis ayuu lacag ka qaadi jiray bishii markii ay booliska intaas soo ogaadeen isla markiiba waxay tageen guriga Tatsuya kadibna waxay gargaraaceen guriga waxaa tagay laba askari oo boolis ah laakiin waa laga furi waayay guriga kadibna waxay tageen guriga dariska ama apartamentada ku dhagan wuxuu ahaa dabaq kadibna waxay ku yiraahdeen waxaan rabnaa in gurigan aan daaqada ka fiirino ama inaan ka fiirino balkoonka dadkii dariska la ahaa Tatsuya way u ogolaadeen booliska inay gurigooda ka fiiriyaan kadibna boolisku waxay tageen balkoonka guriga waxayna ka fiiriyeen halka gudaha guriga Tatsuya markii ay guriga fiiriyaan nalalka oo dhan waa ay dansanaayeen laakiin booliska waxay dareemeen in guriga wax ku dhex dhaqaaqayaan sida darteed waxay ogaadeen in qof ku jiro intaa kadib ay soo wareegeen labadii askari kadibna waxay imaadeen iridda si xoog ah ayaan u gargaraaceen laakiin iridda waa laga furi waayay intaa kadib booliska waxay go'aansadeen inay albaabka jabiyaan oo guriga xoog ay ku galaan sida darteed labadii askari waxay dalbadeen askar dheeriya waxaana loo soo diray 7 kale tirada guud ee booliska meesha ku sugan waxay noqotay 9 koodina waxay isku diyaarinayeen inay iridda Tatsuya jabiyaan waxayna saarayeen qaybta kore hal mar ayaa waxaa la furay iridda guriga Tatsuya wuxuuna ka soo baxay isaga oo ordaya booliskuna wax falcelina waa ay sameeyeen waayeen halkooda ayagoo taagtaagan ayuu ka dhex baxay Tatsuya wuxuuna orod kaga dagay jaranjarada booliska waxay kadib ay ka daba ordeen laakiin waa ay qabo waayeen Tatsuya marka koowaad xabad kuma aysan ridi karin sababtoo ah jaranjarooyinka waa ay gaagaabnaayeen waana ay leexleexanayeen marka labaadna orod kuma aysan gaari karin Tatsuya oo Tatsuya wuxuu ahaa nin aalamiita leh wuxuu dhigi jiray gym maalin kasta wuxuu aadi jiray gymka wuxuuna aalada lagu ordo ee gymka ku ordi jiray 20 kilomitir maalinkii sidaa darteed booliska suurtagal uma aysan ahayn inay orod ku soo qabtaan marka saddexaadna boolis dhulka jooga oo kuwa kor jooga kaalmeynaya ma aysan jirin 9kii askari ay meesha joogtaba waxay saarayeen qaybta kore mar dambana booliska ma aysan arag Tatsuya intaa kadib waxay faafiyeen masawiradiisa waxay ku dhajiyeen meel walba waxayna dul dhigeen $10,000 qofkii soo sheega Tatsuya meesha uu joogo ama macluumaad sahli kara in la soo qabto Tatsuya xataa waxay u sameeyeen boolisku Tatsuya masawir weyn oo sida bombalaha oo kala ah waxay dhigeen meel walba moolalka dukaamada maqaayadaha jidadka meel walba ay dhigeen si ay u soo qabtaan Tatsuya sidoo kale xataa waxay sameeyeen boolisku masawiradiisa oo ay u ekaysiiyeen naag oo ay photoshop intay ku habeeyeen ay naag u ekaysiiyeen isagoo ay tin dheer u sameeyeen waxay islahaayeen xataa hadduu naag isku ekaysiiyo yuusan idinka fakan Tatsuya intaa kadib booliskana waxay galeen gurigiisa maadaama uu meesha ka cararay waxayna ku sameeyeen baaritaan markii ay tageen balkoonka gurigiisa waxay arkeen barkada yar oo lagu qubaysto oo ay leeyihiin musqulaha casriga baashan yar masawirkeeda idin soo saari doona ma aqaan si kale loo dhaho baashaas oo taala balkoonkiisa waxaa jira qaar la wadwadi karo oo musqusha inay taalo mar walba aysan qasab ahayn oo meesha rabta ay geey karto waxay u tageen baashaas oo ciid ka buuxdo balkoonkana taala sidoo kalena ay gacan ka soo baxsan tahay gacantii markii ay soo bixiyeen oo ay qofkii ku jiray hoosna ay soo bixiyeen wuxuu ahaa meydka Lindsay Hawker meydka markii ay soo bixiyeen waxaa ku yaalay dhaawacyo badan waxaana ka muuqatay inay isku dayday inay isdifaacdo intii aan la dilin ka hor laakiin laga xoog badiyay intaa kadib warkii aad ayuu u faafay meel kasta ayuu gaaray xataa wuxuu gaaray qoyskii Lindsay waxayna imaadeen wadanka Japan waxaana bilaabatay eedo badan oo booliska loo soo jeediyay marka koowaad eedda ugu horreeyay booliska waxay ahayd sidee boolis 9 nin uu kaga baxsaday hal nin iyagoo hortaagan gurigiisa sidoo kalena booliska waxaa lagu eedeeyay maxay Tatsuya masawir 7 sano ka hor laga qaaday markii uu 20 jir ahaa ay meel walba ugu dhajiyeen oo masawir cusub oo casri ay ugu dhajilayeen muddo markii ay waayeen booliskuna uu ku batay cadaadisku booliska waxay bedeleen masawirka
masawirkii waxayna soo saareen masawir cusub oo isagu leeyahay waliba markaa waxay gaarsiiyeen masawiradiisa xataa baadiyaha lacagtii dul saareedna kor ay u qaadeen oo waxay gaarsiiyeen ilaa $100,000 laakiin intaas oo ay sameeyeen weli ma aysan helin Tatsuya isagu markii uu baxsaday wuxuu aaday mid ka mid ah jasiiradaha yaryar ee waddanka Japan jasiiradaasna wuxuu ka helay mid ka mid ah godadka ay lahaa jireen ciidamadii waddanka Japan intii ay ku jireen dagaalkii labaad ee adduunka godkaas wuxuu ahaa god weyn oo dhisan oo qolal hoos ku leh godkaasna wuxuu ahaa god ay ciidamadu kaga dhuntaan duqaynta iyo gantaalada lagu soo tuuray jasiiradda halkaas ayuu ku jiray 6 bilood markii uu magaalada soo aaday oo magaalada wax uga baahdo kale Tatsuya wuxuu isku dayay jiray inaan la aqoonsan sida darteed wuxuu soo gashi jiray koofi sidoo kale mask ay wajiga ku xiran jiray indhahana wuxuu gashi jiray okiyaale wuxuuna sameyn jiray wax walba uu awoodo si aan lagu aqoonsan 6 bilood kadib Tatsuya wuxuu go'aansaday inuu dib ugu soo laabtay magaalooyinka wuxuu isiri 6 bilood kadib raadintii tirada badneed waa ay yaraatay dadkana inta badan waa iska iloobeenba keiskaas wuxuu mar kale dib uga soo raacay jasiiradii Doon wuxuuna ku dagay magaalo lagu magacaabo Nagoya halkaas ayuuna iska dagay wuxuu ka bilaabay magaalada shaqooyin yaryar oo fudfudud shaqada ugu badan ee uu qaban jirayna waxay ahayd fuundinimo inuu guryaha dhiso 2 sano ayuuna ka shaqaynayay ilaa laga soo gaaro 2009kii nasiib wanaagiisana 2 sano cidna ma aanay aqoonsan xataa dadkii uu shaqada kala shaqeey jiray ma aanay aqoonsan intaas uu shaqaynayana wuxuu aroorinayay Tatsuya lacag hadafkiisuna wuxuu ahaa inuu wajigiisa qalliin ku sameeyo si wajigiisa uu u bedelo oo aan loo aqoonsan ugu dambeyn bishii October Tatsuya wuxuu u tagay dhakhtarka wajiga qalliinka ku sameeya dhakhtarkii markii uu u tagay wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad sankana ii yaraydo oo sanka caata ka dhigto sidoo kalena aad kor u qaado dhakhtarka wuxuu ku yiri sanka waa lagu yareynaa laakiin sidaas loo yareynaa oo aadka haday aad rabto sidoo kalena in kor loo qaado aad rabto waa ka fool xumaana kadibna wuxuu ku yiri Tatsuya haba fool xumaada dad doonay sidaas ayaan rabaa sidaas iiga dhig dhakhtarkii wuxuu ku yiri Tatsuya waa lagu sameeyaa qalliinka goormee rabtaa in qalliinka lagu sameeyo Tatsuya wuxuu ku yiri maanta way ii sameey dhakhtarkii wuxuu ku yiri maanta laguma sameey karo waxa laga baahan yahay inaad 10 saacadood wax cunin ka hor inta qalliinka lagu sameeyo Tatsuya waxa lagu yiri bari noo imaaw bari ayaan ku sameynaynaa maalinkii xigay markii uu yimid Tatsuya dhakhtarkii wuxuu ku yiri waxa laga qaadaa masawir Tatsuya markii hore ma uu rabin in masawir laga qaado laakiin dhakhtarkii ayaa ku qanciyay inuu masawirka laga qaado sababta wuxuu yiri waxa rabnaa inaan isbarbar dhigno masawirka intii qalliinka lagu sameeyo iyo markii qalliinka lagu sameeyo kadib masawirkana waxa la siinaa adiga sidoo kalena waxa la dhigaa kaydka isbitaalka cid kale oo gacantooda galaya ma jirto ugu dambeyn Tatsuya waa ku qancay masawir ayaana laga qaaday in yar kadibna waxa lagu sameeyay qalliin kadibna waxa uu ekaaday sidan masawirkan waa masawirkiisii hore masawirka uu timaha dheer leeyahay waa masawirkiisa markii qalliinka lagu sameeyay kadibna Tatsuya dhakhtarkii waa isaga baxay dhowr maalmood kadib wuxuuna dib isaga galay magaaladiisa laakiin nasiib xumadiisa dhowr maalin kadib dhakhtarkii ayaa wuxuu ku arkay Facebook masawirkii masawirka Tatsuya oo lacag ay dul saaran tahay sidoo kalena ay boolisku doondoonayaan inta kadib booliska ayuu la xiriiray wuxuuna ku yiri waxaan u maleynaa in dilaagii Tatsuya aan qalliin u sameeyay Tatsuyana markii uu dhakhtarka u yimid magaciisa dabcan uma uusan sheegin magaciisa dhabta uma sheegin magaca waxba ka jirin ayuu u dhiibay dhakhtarka markii uu booliska inta la socodsiiyay booliska way u imaadeen dhakhtarkana waxay ka qaateen masawirka Tatsuya masawirkiisii hore iyo masawirkiisii dambe booliskuna waxay mar kale faafiyeen masawirka cusub ee Tatsuya wuxuu islahaa qalliinkan wuxuu ku noqon doonaa kii kaga taqallusay dhuumashadan ku jirto laakiin wuxuu ma noqday kii dadka indhahooda mar kale ku soo jeediyay kiiskiina mar kale ayaa dib loo furay mar kale ayayna warbaahintii bilowday inay faafido Tatsuya mar kale ayuu wuxuu isku dayay hadana inuu baxsado uu jasiiradiisii hore u laabto laakiin nasiib xumadiisa intii uu raacin doontii uu doonayay inuu ku baxsado mid ka mid ah ciidanka doonta kuwa amaanka ka shaqeeya ee dadka baara ayaa aqoonsaday wuxuuna la socodsiiyay booliska ugu dambeynna Tatsuya waa la soo qabtay 2 sano iyo bar kadib markii uu baxsaday inta kadibna Tatsuya waxa la dhigay xabsiga intii uu xabsiga ku jiray wuxuu qoray buug lagu magacaabo ilaa qabashadii buugaasna wuxuu kaga sheekeeyay wixii ku dhacay 2 sano uu baxsadka ah markii uu baxsaday ilaa markii la soo qabtay buugaasna si aad iyo aad ayuu ugu faafay oo looga iibsaday wadanka Japan iyo wadanka Ingiriiska Tatsuyana wuxuu yiri buugaas waxa uu sameeyay aan rabaa inaan ugu tabaruco lacagta ka soo baxdo qoyskii Lancy si ay ugu noqoto magdhow laakiin qoyskii Lancy waa ay diideen kaliya waxa ay dalbanayeen waxay ahayd in xukun dil lagu xukumo Tatsuya isagu markii uu ka sheekay sidii uu dilay gabadha wuxuu ku yiri waxaan keenay guriga kadibna waa aan kufsaday ciigo ayaana ku dilay ugu dambeyn Tatsuya waxa la soo taagay maxkamaddeena waxay ku xukuntay xabsi daa'im xukun dilana lagu ma xukumin inkastoo uu ilaa hadda ka sii jiro xukunka dilka ah wadanka Japan sababta ugu weyn waxay ahayd inta badan xukunka dilka ah Japan waxa lagu xukumaa dadka dilay in ka badan hal qof dadka ah dilayada sida isxigxiga wax u dila ama dadka laaya dad tiro badan sidoo kalena waxa lagu xukumaa dambiilayaasha waaweyn Tatsuyana intaaba kama uusan mid ahayn hal qof oo kaliya ayuu dilay sidaa darteed ayaa Tatsuya loogu xukumay xabsi daa'im ilaa haddana wuxuu ku jiraa Tatsuya xabsiga muuqaalkeena maanta inta ayuu ku egyahay
tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegayaa amaan Allah.